qoyskani oo ah qoyska reer Maaxsali oo kamid ah qoysaska carabta ah ee degan magaalada Berbera ayaa markii ugu horeysay ka cawday maayirka magaalada Berbera oo ay kaga cawdeen in dhulbeeraha ay sheegeen inay ku lahaayeen deegaanka Dubaar inuu qayb ka mid ah dhulkaasi ka qaadayo maayirka magaalada Berbera waa siday hadalka u dhigeen qoyskani oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in uu dhulka beertani iyagu ay ka dhaxleen aabahood isla markaana imika uu marayo dhaxalkiisa ودرينا مدحوينها جمهورية الصوماليلان مدن مدحوينه waxaanu nahay carabti magaalada Berbera waxaanu deganeen magaalada Berbera muddo laba qarniya labada qarniyaanu deganeen beer baanu lahayn beerta ilma Maaxsali baan la yiraahdaa waxaanu lahayn beerta ilaa iyo Turkiga muddada aanu beerta lahayn muddada dheer oo awoogayo ka dhaxalay dhaxalka maanta wuxuu marayaa anigu kii saddexaad baan taaganay caruurtaydiyo waxay caruurtaydiyo kuway si dhaleen magacii shanaad baanu taaganay maanta waxa nagu haysto nagu qabsaday maayirka magaalada Cabdishukuur Cidin ayaa nagu haysto inuu madaxweyne kaaga ergeynayna waxa weeyaan in Cidin de beerihiisa waa la yaqaano biyo guuray haayeen beertayda anaga sharcigeedii waanu haysanaa waa noo dhan yahay madaxweyne madaxa meel la taabto ka sareysa ma jirto waxa ku taala Dubaar bay ku taala waa meesha biyuhu magaalada Berbera uga yimaadaan koonfur bay ka xigtaa magaalada Berbera koonfur bari bay ka xigtaa mudane madaxweyne waxa weeyaan waa noo hanjabaad buu noogu daray maalin walba wuxuu yiraahdaa waa idin leeyahay waa idin dilayaa wadada waa naga xidhay gaari ayuu iyo ood buu naga xidhay tiraba 3 jeer 4 jeer in ka badan buu noo caga jugleeyay noo hanjabay oo uu yiri waan ku dilayaa shalay ugu dambeysay oo markuu suldaankaygana candufta ku tufaayay uu yiri waa idin leynayaa mudane madaxweyne maanta waxaanu kaaga ergeynaynaa haddii hoostaadana lagu boobo oo hoostaadana lagu laayo oo calanka hoostiisa iyo madaxweynihiina lagu dee waxa weeyaan markaa madaxweyne waxaanu leenahay arrinkaa wax nagala qabo hadlayaa oo aan baaq u dirayaa magacaygu waa Caashe Axmed Faarax waxaan halkan kala hadlayaa oo baaq u dirayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi madaxweyne ilaahay ha ku dhowro madaxaagana ha raajo waxaan kaaga dacwoonaynaa oo mashkati aan ka nahay maayirka magaalada Berbera Cabdishukuur Cidin wadanka waxaanu deganay laba qarni baanu maraynaa labada qarni waxaanu lahayn beer cid waliba way taqaanay waxa laga soo guri jiray timir khariifta bahaashka gobka cid waliba way taqaanaa Cabdishukuur Cidin intuu isdhex taagay buu aniga ayaa iska leh xoog buu nagaga haystaa waxa yagii nagagana qaaday maxay haytay nooguna hanjabayaa oo leeyahay haddaan mar dambe aan idinku arko rasaas baan idin la dhacaya gacantayda ayaan idinkaga shaqaynaya inanka Cabdikariin hooyadii baan ahay hadlaysay madaxweyne waxaan kuu sheegayaa inankaas maanta haddii uu gacan bini aadan ku dhinto oo bini aadan wuxuu geysto inuu Cabdishukuur Cidin arrinta ka kowyaho ka dambeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay mudane waxaanu doonaynaa inaad il raxmadeed ku soo eegto dadkan baahan dadkan maatada dadkan masaakiinta ah ee lagu dhacayo magaalada Berbera oo beerta jirtay muddada dheeraadka 200 sanadooda ee la bilaabantay waqtigii Turkiga dadkii dhaxalkeeda lahaa maanta dusha uu kaga soo degay ee uu yiri aniga ale halka maanta waxaan uga dirinaa baaq madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland golaha guurtida Soomaaliland iyo golaha baarlamaanka annaga oo ku hadlaya afka madax dhaqameedka beelaha Carbeed ee Soomaaliland waxaanu deganahay Soomaaliland muddo ilaa 3 qarni ilaa 4 qarni ah maanta baaqan wuxuu daaran yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan cid ka sareysaa jirin iyo golihiisa xukuumadda waxaanu Berbera anigu hadda muddo ku sugnaa bil ah waxaanu u joognay arrinta beerta heer Maaxsali ee ku taala jiida Dubaar meesha la yiraahdo oo beertaas oo ay lahaayeen 200 oo sanadood waa 200 qarni biyaha Berbera iyo beertaas maalin bay wada bilaabmeen maanta waxay maraysaa xilligii qarnigii shanaad bay maraysaa markii aanu maayirka la kulanay wuxuu yiri awowgeyna ma degin aabahayna ma degin waxaan ku haystaa xoog kana tagi maayo shalay ugu dambeysay caga jugleyn iyo rasaas baan idin la dhacayaa baanu waxaan ku yiri uu nagu sameeyay goobi ka horeeyaan isugu nimina wuxuu lahaa waa kala baxaynaa markii aanu ku noor meesha ka soo gashay anaga noo sheegna wuxuu yiri shalay ku soo gabagabay xoog baan ku haystaa aanu hayn
haddaanu beela carbeed dadkii hoyl iyo hooba u soo horay calanka jamhuuriyadda Soomaaliland ma nihin carab dibadda ka timi waa kuwii dhiigooda u soo horay calanka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne shacabka ku baaqaya waxay leeyihiin aanu leenahay oo ku hadlaynaa yaan hoostaadana lagu layn waxa weeye cid kalena waxba u sheegan mayno beesha uu ka soo jeedo dad fiican weeyo waan wada deganahay ixtiraam baan u haynaa kale maayirka magaalada Berbera Cabdishukuur Cidin oo isku daynay inaanu cabashadani wax ka weydiino ayaana noo suura gelin telefoonkiisa gacanta oo xidhnaa awgii Sorry, the mobile phone you have dialed switched on.